ma isku dayday weligaa inaad iibsato TikTok giftiska balse ma la kulantay caqabadan oo kale? haddaba muuqaalkan intuu socdo ayaan waxaan kugu soo gudbi doonaa 3 step kuwaasi oo kuu soo koobi doona hab fudud oo aad ku iibsan karto TikTok giftiska adigoo isticmaalaya lacagaha kugu jiro SAD, EVC, Sahal iyo waliba waladyada la mid ah. intaan muuqaalka ugu gudagelin waxaan ka codsanaynaa in aad videoga like inoo saarto channelkana aad ku soo biirto si aad u daawato muuqaalo kale oo badan. Step 1 marka ugu horeyso waxaa la soo degtaa Wafi application. waxaad kala soo degi kartaa haddii aad haysato iPhone Apple Store-ka, haddii aad haysato Android-na waxaad kala soo degi kartaa Play Store. markii aad la soo degtay application-ka Wafi waxaa lagaaga baahan yahay in aad daarato daatada SIM card-kaaga. markii aad daarato kadibna waxaad iska diiwaan gelinaysaa application-ka Wafi. qaybta hoose ee halkan kaaga calaamadeeyay waxa aad ka dalban doontaa Mastercard-ka application-ka Wafi oo ah Mastercard Virtual ah. qaybtaas kore ee isha ku qoran tahay ayaa furaysaa. haddaba waxa ku soo bixi doono Mastercard-kaagii nambarkiisa iyo sidoo kale CVV-giisii. waxaa gees kale ka arkaysaa taariikhda uu dhacay. lacagtaada kugu jirtay EVC-gaaga ama Sahal ama SAD, lacagtaasi ayaa waxa aad ka soo bixinaysaa SIM card-kaagii, waxaa soo dhex dhigaysaa kaarkan. si aad intaas u samayso waxaad taabanaysaa qaybta ay ku qoran tahay top up. qaybta SIM card-ka ayaadna taabsan doontaa. kadibna SIM card-ka haddii aad dooratid qaybtan ku xigtana waxaa halkaas ku qoraysaa lacagtii aad ku shubi lahayd Mastercard-ka. sidoo kalena description-ka ayaad iskaga qoraysaa wax description oo caddeynaya lacagta aad ku soo shubaysid. waxa ay tahay muhiim maahan, wax kasta ayaad iskaga qori kartaa. lacagta EVC-gaaga kugu jirtay ayaana waxay kuu soo gali doontaa kaarkaaga oo hadda kaarkaagii lacag ayaa kugu jirto woona kuu diyaarsan yahay. Step 2 kaarkii hadda aan soo samaysanay ee lacagta ku shubanay iyo waxaan isku xiri doonaa taleefankeena. inta aadan kaarkii iyo taleefankaaga isku xirin marka hore qaybta Wafi-ga ayaa galaysaa, kaarkaaga ayaa ku dhufanaysaa, meesha kore ee isha ku qoran tahay ayaa furaysaa. kadibna calaamadda koobiga ee aan ku xariiqay ayaa taabanaysaa. waxaad ku soo koobiyeysatay halkaas kaarkaagii nambarkiisa oo dheeraa. kadib waxaa kor ka soo xifdinaysaa xilliga uu dhacayo iyo sidoo kale CVV-ga oo meesha ku qoran. intaas markaa haysatid kadib taleefanka isticmaalayso haddii uu yahay iPhone, haddaba daawo muuqaalkan. marka hore setting-ka gal, kabacdina waxaa ku dhufataa magaca iCloud-ka, kabacdi payment and shipping. hadda non ayaa ku qoran ka hadhow Mastercard ay isku bedeli doontaa. meeshaas ku dhufo, kabacdi wax yar uu wareegsan doonaa. kabacdi meeshan guduudan oo billing address-ka aan ku geliyaa ku dhufanaysaa. country ayaad ka sii dooranaysaa, continue ayaana kabacdi dhehaysaa. country-ga ayaa bedel rabnaa, haddana country region aad kusii dhufanaysaa. meesha guduudan aan ku geliyey, kabacdi change country wadanka bedel ayaa ku dhufanaysaa. wadankan hadda aan dooran doono waa Baalu ayaa meeshan ka dooran doontaa oo waa taas calaamad guduudan aan ku geliyey. kadibna waxaa ku soo bixi doono agreement-gii uu wareegsanayaa wax yar. agree ayaad dhehaysaa, meeshaas agree ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa. kabacdina waa meesha ugu muhiimsaneed. kaarkii information-kiisii ayaa meeshan kor gelinaysaa, kaar number-kii maxaa la yiraahdaa. kabacdi information-kii oo dhammaystiran ayaa gelinaysaa. kaar number-kii halkaas hadda gelin rabnaa. markaan faahfaahintan gelino kabacdi Mastercard-ka waxa uu ku xirmi doonaa taleefanka iPhone-ka. markaas qofku uu wato qaybta payment-giisa ayuu ku xirmi doonaa. wax walba uu ku gada doonaa. hadduu rabo iCloud-ka inuu GPU ku darsado wuu ku darsan karaa. kabacdi billing address-ka qaybta ugu muhiimsan waaye. meeshana waa faahfaahintan gelinay street 12 godka labaad waa ka boodaysaa. godka saddexaad country-ga ayaa waxaa ka dhex dooranaysaa koror. meesha ku qoran tahay koror aad ka dooraysaa. postal code-kan waxaa ku qoraysaa 24 iyo 50. phone number-kana nambarka furaha bis ayaa ka bilaabaysaa. tusaale 527 hadduu furaha yahay 66 ka bilaabay, hal hadduu yahay hal ka bilaabay. kabacdina meeshaas next ayaa ku dhufanaysaa oo kaarkii uu wareegaa. isla markaa kaarkii hadda uu ku xirmay, wax dhibaato ma jirto. haddii aad haysato taleefan Android ahna
kaarkaaga iyo taleefankaaga sidan ayaa asigana iskugu xiri kartaa. Wixirto waxaad galaysaa Play Store-ka, Gmail-kaada kore ayaad ku dhufanaysaa, and then waxaad galaysaa payment and subscription, kadib payment method ayaad galaysaa. So si aad kaarkaaga ugu xirto markaa add credit and debit ayaa ku dhufanaysaa, then waxa aan nagala rabaa kaarka information-kiisa inaan inta markaasi ku buuxiyo. So kaarka information-kiisa waafigaaga ayaad kasoo dhex arkaysaa, tusaale kaar numberkaaga iyo maaragtay valid through waqtiga dhacaya CVV. So kaar numberkiina ayaan meeshan koobiga calaamada ku qorta ku dhufanayna, then waxaa imaanaysaa isla meeshii la rabay inaad kaar information-ka gelisid. Copy ayuu nagu jiraa hadda kaar numberkiina, so paste ayaan ku dhigi doonaa, and then save ayaan leeyahay kaarkaaga. kaarkeeni lacag way inoogu jirtaa, taleefankeeni iyo kaarkeenina waan isku xiranay. Step 3 ayaan u gudbi doonaa oo ah in aan gadano coins. Marka hore waxaad la soo tegi doontaa appkan lagu magacaabo VPN Turbo ama Turbo VPN. Play Store-ka iyo sidoo kaleba qaybta Apple-ka waa ka helaysaa. Markii aad la soo degtid kadib Turbo app ayaa furaysaa, appkii aad la soo degtay ee VPN-ka, kadibna waad daaraysaa. Hadda waxaan gadan doonaa giftiskii aan u baahnayn ayadoo kaarkii lacag inoogu jirto. TikTok-ga ayaa soo furi doontaa, kadibna qaybta kore TikTok setting-ka ayaa galaysa. Setting and privacy ayaa sii galaysa. Meesha ay ku qoran tahay balance ayaa ku dhufa doontaa. Hadba waxaad dooranaysaa inta coin aad rabtid. Qiimahoodana meesha hoose ayuu ku xariiqan yahay 0.8, $1 iyo 1 senti. Hadba markaasi inta aad rabtid inaad TikTok-aada ku shubatid. Sidaas ayaana ku gadatay coin-kaaga oo adigoo isticmaalayo lacagtaadii markaasi EVC-ga kugu jirtay, kaar virtual oo waafigii aad ka dhex dalbatay, iyo mobilkaagii iyo kaarkaagii oo aad isku xiratay. Intaas oo process markii aad samaysay kadibna waxaad daaratay VPN-ka, halkaas ayaana ku gadatay coinska TikTok. Waxaan soo gaarnay dhamaadka muuqaalka. Akhyaar sharafta leh, waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe inoo saartaan channelkeena. Inta aynu ku kulmi doono muuqaal xigo, waxaan idinkaaga tegi doonaa sidaas iyo nabadgelyo.